dumarka ta ugu khayr badan buu nabigu dhiwaatee waata marka uu ninkeygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi taabiciintii buu ahaa silata ibn ushaym raxmat ullaahi calayh nin wuxuu ahaa aad da'diisu intay weynaatay ictizaal buu sameeyey ictizaal waa maxay yani mujtamacii buu ka dhex baxay cibaaduu markaa u tafaruqay maalinkiina siyaam habeenkiina qiyaam maalinkiina soom habeenkiina salaatuleyl markaa nin adeer u ahbaa u yimid oo ku yidhi inantaydii baan ku siiyey waana kuu dhisaynaa waa la soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyey markaasay ninka waa nin caabid u cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolka xamaamkaa galoo maydho baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoyay baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosadu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaca uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadata ina haysatabe soo maahin de laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa leyti war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayaan dhaqanka islaamka leylatu zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebi maxamed inaanu kugu hogaamiye sidaa 2 rakaca aad igu daba tukatay haddeetooda aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay nebigu waa kii lahaa khayru الnisaa man idaa nadarta ilayha saradka waidaa amartaha aطaacadka waidaa gibta canha xafidadka fii nafsiha wamaalaka dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu dhiwaatee waata marka uu ninkeygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka 2 ragcadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama ana taacadda ilaahay iyo taacadda nebi maxamed baan kugu hogaamine sidaa salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxaa sunnaa halkaa fooda in la qabto fooda ducadee lagu akrinaya allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat calayha soo mahayn
خير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه waxay ka dhigan tahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taalabay culimadu leeyihiin waa dhaakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan wada ka waran labada soo khatar ma wama min daabatin illa huwa aakhidun binaasiyatiha lidalika ilaahay quraanka wakiilaha thumma radadnaahu asfala saafiliin illa alladhiina aamanuu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajida ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaabay cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam boqoliyo konton hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa way shanqari qalow birba ka dhashan qari thumma radadnaahu asfala saafiliin ba u taala lidalika habeenka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunnaa markaa ninkii labadii rakaca markuu kacay iyadna ay daba joogsatay say laba rakaca ugu jireen salaadii fajr ba loogu eedaamay innagana ka warrama habeenka caroosada la soo hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa ayuu leeyahay war kuwan khayrkooga allah badiye bay kaa soo baxaana soo maahida ما شاء الله laba rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga Salaat ibn Ushaym raxmatullaahi calayh sidoo ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahayd oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibaatu lit-tayyibiin wat-tayyibuna lit-tayyibaat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid adoon ilaahay oo wanaagsan adoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid ha gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu as-salihah soo nabigu ma odhan nolosha adduunyadu waa raaxo yar raaxada yar ee adduunyadana waxa helay buu nabigu yiri ninka ilaahay uu ku hagaajiyay gabadh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad hesho gabadh wanaagsan oo wanaagsan ha haddaba adu waa inaad noqotaa adoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waxa uu keenay gabadh wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaat al-leylki iyaduna aanan odhan adaankii fajr ka dhacay uu ka baxay aqalkii ila al-masjid subaxdii ba haweenkii ba u yimid caroosadii bal waran waana la ogaa ninkan inuu yahay nin caabid suufi oo aanu jeedin dumar markaas ay ku tiri salaadii aan galay ba ka baxnay tiri adaankii fajrka iska dahay in laysa salaame salaadii aan xiranay labadii rakacadood adaanka fajrka naga bixiyay tiri sagii baa la qabsaday markaa oo leeyahay warninkaagan khayr allah ku siiyee xal aroosada xaleetooda aad sida ugu gashay wuxuu yiri inninkaaga gardaran buu yiri markii u horeysay xamaam baad geliseen oo ugu tiraadeen biyaha kulul ku maydho biyihii kulul dhulka qabooba moogtay biyo kulul ba loo dhigay biyihii kulul markaan isku shubay buu yiri naartii baan xasuustay buu yiri cadar iyo dhar cusubna waadii iibiseen oo waadii geliseen cadarna waadii mariseen qol waxaadii geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyay ay dhex taalo qolka markaan galena jannadii baan xasuustay buu yiri labadii rakaca markaan xidhay buu yiri jannadii iyo naartii sidaan uga fikiriyaa salaadii fajr loogu eedaamay buu yiri qulubteena allah inoo nuuriyo bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo
dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka. duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaadda iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. fadlan hore ogaad wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.